بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan waxaan rabaa halkaan inaan ka salaamo ummadda Soomaaliyeed. gaar ahaan waxaan rabaa inaan salaan gaar u jeediyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda, dableyda, dhammaan iyo xaasaskooda. waxaan rabaa inaan halkaan ugu jeediyo hambalyo. waxaan leeyahay hambalyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. hambalyadaas oo ku aadan 12 Abriil sanad guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan runtii aad u bogaadiyo dadaalada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan. tan waxay ku soo aadaysaa iyadoo ciidanka xoogga dalka ay aad u dardargeliyeen la dagaalanka cadowga gudaha ummadda Soomaaliyeed ragaadiyay inay ka xoreeyaan deegaanada ay runtii dadkii miyiga ahaa ee beeraha iyo xoolaha tacbanaya ka xoreeyaan inay ku soo aado sanadkan. aad iyo aad runtii aan runtii u bogaadinayaa. sidaas darteed waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. waxaan rabaa fursaddan inaan kaga faa'iideysto inaan runtii u diro fariin u diro wacyigelin ah. sida la socono cudurkan runtii coronavirus dhammaan bulshada caalamka dagaalka ba'an ku hayo. waxaan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iideysto inaan u diro dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan, meel walba ay joogaan, kuwa furumaha joogo, kuwa saldhigyada joogo iyo kuwa talisyada joogaba, in runtii ay qaataan waanada ay soo jeedinaysa wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka ee dhakhaatiirta Soomaaliyeed ay soo jeedinayaan. in aad runtii waa cudur halis ah, waa cudur jira sida aragtaanba oo runtii calaamadihiisa iyo dhibaatadiisa caalamka ka muuqata laga soo sheegayo. dalka Soomaaliya runtii gudaha dalka Soomaaliya soo gaaray la xaqiijiyay wasaaradda caafimaadka ee xaqiijisay dhakhaatiirta. sidaas darteed waxaan rabaa inaan runtii anigoo fursaddan ka faa'iideysanayo aad runtii aan ugu adkeeyo inay aad u taxadiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, inay aad u taxadiraan qatartiisa, inay ka taxadiraan inaan qaadano fariimaha ay noo soo jeedinayaan runtii dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka noo soo jeedinayaan, inaan aad u ilaalino faafidiisa, inaan runtii aad ugu dadaalno nadaafadda, aad aan ugu dadaalno sida dhakhaatiirta noo sheegeen in gacmaha saabuun iskaga meerno oo aad runtii aan u ilaalin nadaafadda, aad u ilaalino. ciidanka xoogga dalka ayagoo furumaha dagaalka jooga, ayagoo hawshooda wato oo lagaga maarmin hawsha ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed, haddana waxaa laga maarmaanay in maxay ahaatay cudurkaas dhibaato noo geysano runtii nadaafadda iyo aan ka taxadirno haddii Ilaahay yiraahdo waxyaabaha keeni karo ama fududeyn kara cudurkaas inuu faafo ka taxadir. marka anigoo ku kalsoon inay runtii fariimaha caafimaadka qaadan doonaan. waxaan marka la rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dhammaan inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaantood iyo xaasaskoodaba iyo caruurtoodaba inaan dhaho hambalyo 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 12 Abriil. hambalyo insha Allah sanadkan sanadkiisa waxaan rajeynaynaa intaan annagoo runtii ka horumarsan, ka barwaaqaysan ee dabaaldegi karna maanta oo kale aan dabaaldegi karno. nasiib darro maanta dabaaldegii 12 Abriil la sameyn lahaa cududa ciidanka xoogga dalka iyo xafladihii la sameyn lahaa isu imaatankii dadka badan waxay runtii ay u dhici waysay masiibadan cudurkan coronaviruska ee dadka maxay ahaatay ummadaha caalamka dhanba dhibaatada ku haya. marka waxaan hambalyo dhahayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo.